مسؤوليinta shirkadda leerka National Electric ee magaalada Hargeysa ayaa waxay ku eedeeyeen shirkadda leerka Sunpower inay jarjareen xarka ay leeyihiin waa kuwan iyagoo ka hadlaya arintaasi anigoo ku hadlaya magaca shirkadda National Electric Power waxa ka dhacday halkan arin la yaab leh oo aad u falxun Saciid Sheekh Umar ama Sagirin balaasan ninka iskale waa nin deegaan oo magaalada deegaanka oo meel weyn ku leh leerka shirkadda Sunpower leeraba u shidi jirtay markii uu ka daciifay noo yimaado markaas leerka noo geliya annaga u gelin leerkoodii iyo leerkayga wada baxaya ayuu isticmaali jiray Sunpower baantay soo gashay iyagoo qolada meesha ee Green Plus la maamulkooda aan ogeyn annaguna aanay ogeysiin ayay soo galeen dibadna leerkayga bay jareen leerkoodii kaliya ku daayeen meeshii markii shaqadii bilaabantay ee ay Green Plus isna hawshini bilowda leerkii ka daciifay leerkii kale ku wareegaystiraahdeen markii isna leerkii kale ku wareega ayaa waxa dhacday waa la waayay leerkii waa naloo soo qayladoontay waanu nimi waxaanu aragnay leerkii oo la jaray dhammaantiba maamulkii Green Plus ama Saciid Sheekh Umar iyo maamulkii shirkadda National iyo waxaygu waanu sugu nimi waxaanu aragnay dhammaantii in leerkii indhabirta la awdgareeyay waxaa jaray ee leerkaa gooyena wax kale maaha waa shirkadda Sunpower weey ka jaray iyo ka soo diray iyo ka dambeeyay godobta cidaan u raacayna waa garayna walaalayaal waxa loo socona waxa weey wax kale maaha in dadka la kooteeyo oo dadka saduuq lagu xidhaaba la doonaya sidaa darteed dacwad wixii dambi meesha ka dhacayna waa dacwad waa daba socona waa gudbinina annagoo shirkadda National ama indhabirta hadba sida loo yaqaan waxa dhacday qiso foolxun oo ay nimanka Sunpower leeyahay sameeyeen marka waxa weey nimankaasi qiso xun oo foolxun oo koota ay doonayaan inay ummadda ku qabsadaan ummaduna ugu xidhanayso ganacsiga waxa la yiraahdaa waa xorde kii jaray iyo ka soo amrayba dabagal iyo sharcigeeda iyo abaalkeedana uu heli doonaa dacwadana waanu gudbinaynaa xaqeedana way mari doontaa mid ka mid ah mas'uuliyiinta iyagoo meheradahooga laga gooyay leerka ayaa halkaasi ka hadlay anaga labadooduba kolba kiino wanaagsan uma nushadana gashanayna ka bacdi markuu Sunpower daciif nagu noqday waxaan isla garanay inaan dabka soo xoojino National baan u tagnay kadib amba indhabirta kolba saa u taqaanaan ka bacdi waxay noo soo jiideen dab aan waxaan ahay ninka u qaabisan Saciid Sheekh Umar ama Summertime qaybta electric oo dhan xalay markay ahayd ayuu Saciid soo garaacay markii meesha ay baqtiday ayuu yiri niyo meeshii maxaa ka siinay ma garan karaan soo meeshii tag meeshii baan imid waxaan arkay meeshii laga saaray dabkii indhabirta oo ku taagay dabkii Sunpower waxaan ogaanay inay saddex shaq hor yimaadeen meeshan cidba joogin arrinkaana khalad baan u aragnaa wixii naga gubtay iyaga mas'uulka maraan isku daynay wax ka weydiino eedeyntan ay u soo jeediyeen shirkadda National Electric mas'uuliyiinta shirkadda leerka ee Sunpower ee ay ku eedeeyeen in ay jarjartay xarkooda ayaanay noo suuragelin Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa.